adnaan halka waxaan u joognaa waa hoolkii weynaaya 18 May ay ka dhacaysay maalinta Sabtida ah ee nagu aadan ee wiigi naga harsan yahay waa Manson Hotel oo ku yaala South Hall the Diamond Street parking weyn bay leedahay tigi doona parkingkaasi waa from 6 evening to 6 in the morning waa free sidoo kale dhammaan jaaliyada Somaliland ee taqtal iyo dibadda ku nool waxaan u dirayaa hambaliyo ballaaran waxaan leeyahay arag fiican soo dhawaada waa inoo soo jeediyay 12 May iyo Manson Hotel ee South Hall ما شاء الله وحسلامة يا دمان رئيس Somaliland ودن وحنود لنا هاي happy 18 May مركب بلعبة سيد حسين برشاقي على مدى إنه ده تاجر النجا ما أنتو كلنا مركب وحنود لنا هو Manson Hotel إن هول كو وحنو كيالا South Hall Greens كو كيالا دمان رئيس Somaliland وحنود لنا هاي نجلا سوقي بكلا ومالنتي على كمالن وحكلا معها على كأين ودبل دقنا حتى Somaliوين ودن ونجلا سوقي بكل كرتا أنت Somaliland dhammaan waxaan salaamayaa ummadda reer Somaliland ee ku nool UK gaar ahaan magaalada London iyo nawaaxigeeda iyo intii gobolada inooga imanaysa oo reer explanation waxaan si Xuseen Cabdi Biitaan waxaan ku darayaa halkan waxa inoogu iman doona insha Allah Somaliland oo wada dhan SSUK safaaradii oo iyadana dad inoo soo diraysa wufuud inooga timi Somaliland SSUK waa community Somaliland ugu weyn oo in badan soo jiray ilaa iyo muddo laga bilaabo 1985 iyo up to now oo ah macnaheedu isku xirka ummadda reer Somaliland iyo qaranka marka iyaguna way nala soo qayb galayaan waxaan noo jooga marti badan baa inoo joogta oo arki doontaan de parking wada arkasan free parking bay idin jira interkii waa halkan qofkii doonay gaariga xagga soo dhigto halkan uu ka gali karaa qofkii kalena xagga kala soo dhigtana xaggaas ka soo gali kara waa two interest marka waxaan leenahay reer Somaliland waa maalin weyn waa 18 May waa maalin aad noogu weyn ka soo qayb gal wanaagsan soo wada bax insha Allah Hussein Biite iyo Saleebaan baa idin sheegay maalinta 18 May waa maalin ugu wada weyn qaranka Somaliland iyo dadka Somaliland ee ku dhaqan UK waxaan u sheegaynaa in la qaban doono oo gudidan ama barmootiradan ay ku daba fayl doono dhamaantood ay ku daba fayl doonaan gudida SSUK ee weligeed ba qaban jiray waxa la hore loo yiri gaariga ninkii wadi jiray garan ha loo daayo marka qoladaas lagu daba faylaya madaxda wadankii iyo kuwa halkanina SSUK ayay awalba xafladda loo daba fariisan jiray haddana waxa ka dhacaysa iyagu ba loo daba fadhiyaa iyagu ba qabanaysa halkaas la isugu yimaad doona meesha madaxdu marto ayaan awalba mari jirnay hadaynu nahay Somaliland waynu ku daba fayli jirnay dadka reer UK waxaan u sheegaynaa in South Hall Manson Hall ay isugu iman doonaan xafladda aan ku qaban doono lagu abaabuli doono parkinguna free yahay maxaan ku raadayay dal isku arki doono de hala soo baxo meesha lagu arko odayaasha la arkayo gudidu way farbadan yihiin Saamiya Xajigeen Munabi Cirif waa dadka de baalayaasha ku duurayaan ayaa aad iyo aad iyo Hiba Bashiir dadku way badan yihiin dhammaan iyo Nimcaan Deeg Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan jaaliyada reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Ingiriiska iyo nawaaxigeega aad iyo aad baan u salaameynaa sida hore ugu la socoteen saaxiibadayda kala duwan ee noo soo sharaxay hawlaha sida ay u socdaan ama hoolka ama parkinga baabuurka marka laga yimaado halka waxa garab taagan Hiba Bashiir iyo aniga waxaan inii haynaa raacii saddexaad ama qaybtii saddexaad ee kaararka oo gabagabo ku dhow oo aan doonayno in dadka u baahan aanu ka siin karno oo soo kordhinay maadaama hoolkeenu hool weyn yahay dad badan ay noo qaadayo chance iyo farxad iyo dabaaldeg weyn aan qabno waxaanu go'aansanay inaan kaararkii hore maadaama ay dhamaadeen aanu kaarar cusub soo daabacno kaararkaasna waad naga helisaan laga bilaabo isla maantaba aad baad u mahadsantihiin 18 May la moogaan dhammaan inakoo reer Somaliland oo isku duuban halkan waxa ku soo dhaweynayaa Hiba yar Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan shacabweynaha reer Somaliland meel kasta joogaan waxaan leeyahay happy 18 May xafladiyo de hadda waxba naga xigin kaararkiina intii ugu dambeysay ay naga diyaartaan naga heli kartaan dhammaan ummadda Somaliland waxaan leeyahay soo dhawaada hoolkii waa kan dhex joogno happy 18 May hoolkuna waa Manson Hotel Hotel Happy
happy 18 May dhammaantiin tiimkana waa tiimkii idin waday waliba waxaa idinka dhiman SSUK iyo jaaliyadii iyo dhammaanteed habeenkaa waxay nagala soo qayb galaysaa fanaaniintii nagala soo qayb galaysa waxaa ka kow ah Farxaan Badacas Yuusuf Jeego Qarabaatiile iyo Ciid Batalaale iyo Canab Marwo Yuusuf Dheere Faadumiina iyo sidoo kale Nafaxaad iyo Axmed Dhagax iyo sidoo kale waxay noo imanayaan habeenkaas Cabdikhaliq Maxamed Siraad dhammaantaas waxay noogu diyaar yihiin habeenkaas inay nala qaataan happy 18 May Adnaan Show iyo dhammaan dadkina way joogaan dhawaanadii wada salaaminaa goobtu waa Mansoon Hotel oo South Hall ah aad baan idiin salaaminaa happy 18 May hadda waxaan tagnaa qaybta baarkinka si aad u ogaato meeshu waxay leedahay laba wajahadood wajahada koowaad waa tagi doona oo laga soo galo dhinacaas iyo Dahabshiil waa the green the diamond street no xagga dambe soo haddii aad gaari wadato inkastoo ogahay dhammaan jaaliyadda Soomaaliland ay gaari wadato baarkinku waa free from 6 evening to 6 in the morning so let's go Can was the biggest parking in South Hall waxay daaqaysaa in ka badan 600 oo almost over 200 cars way daaqaysaa soo marka parkingkaas wuxuu bilaabmayaa 6 wixii ka dambeeya ilaa 6 subaxnimo waa free halkana waad ka soo gali kartaa xagga kale HS the green waad ka soo gali kartaa fadlan ku soo dhawo maalinta 18 May ee nagu soo aadanay sabtida ah 18 May oo ka dhacaysa Mansoon Hotel South Hall the green and the diamond street labadaba waxaan leenahay is arag wanaagsan dhammaan jaaliyadda Soomaaliland UK iyo daafaheeda ku sugan waxaan leenahay ka soo qayb gal wanaagsan u soo bax wadankaaga iyo maalintiisa